waxaan jeclahay inaan kugu soo gudbiyo fiidiyogan gaaban 3 qorshe ah ugu faa'iideysan karto waqtigaaga. Nolosha waxa ugu qaalisan waa waqtiga, haddana waa waxa ugu dayaacad badan. Waqtigu waa mid ka mid ah hibooyinka qaaliga ah ee Allah mooyay aanay cid kale bixin karin, cid kastaana muhiim u ah. Inkastoo dhalinyarada badankooda sida wanaagsan uga faa'iideysan, iyaga oo waqtiga uu isaga lumiyo waxaanan faa'iido u lahayn mustaqbal iyo diinba. inaad fahamto dhibaatada ka haysata qorsheyn la'aanta waqtigu waa talaabada ugu horeysa ee kuu sahlaysa inaad waqtigaaga qorsheysato. Haddii aanad ku baraarugsanayn arrintaasna, way adag tahay inaad sameyso ficil aad ku qorsheynayso waqtigaaga. Haddaba isku day inaad yeelato qorshe wanaagsan. Qorshaha wanaagsan ayuunbay nolosha wanaagsani ka bilaabantaa. internetka maanta waa waxa ugu badan ee ummadda waqtiga ka lumiya. hase ahaatee waxaa ku jira xirfadaha kuwa ugu muhiimsan casrigan aan ku noolnahay oo ka maarmin qofka bini'aadamka ah. 24 saacada internetka iska dul fadhido adigoo ku mashquulsan wax aanan waxba kugu soo kordhinaynin, waxaa kaaga fiican daqiiqado kooban oo aad wax ku anfacaya ka barato. markasta aad rabto inaad hawl qabato, u samee hawshaasi waqti xadidan oo aad ku dhameynayso. taasi waxay kaa caawinaysaa inaadan hawshaasi ku caajisin oo aad diiradda saarto, waqti koobanna aad ku dhameyso. ugu dambeyn, waxaan muuqaalkan kuugu soo gabagabeynayaa hami iyo han sare oo aad yeelatay waxa ay sabab u noqdeen inaad hadaf dejisato. hadafkaasina waxa uu sabab u noqday in aad waqtigaaga maareyso. waqtigaaga oo aad maareysay ayaa ah sababta koowaad ee guushaaga.